بسم الله الرحمن الرحيم waa walaalkiin Siciid Ereg oo jooga wadanka Imaaraadka Carabta magaalada Dubai waxaan rabaa inaan duubo video ku saabsan barnaamij kuu sahlaya sida maaragtay la isugu geeyo video matalan company baad maaragtay xayeysiinaysaa marka beri video meel buu socdaa boggii la iska qorinaa meel buu socdaa marka sida hal meel looga dhigto hal link looga dhigo ayaan maaragtay wax ka tusayaa inta aan taas gelin baan rabaa dhowr qodob oo yaryar oo ku saabsan shaqada online-ka ah ayaan rabaa inaan wax ka sheego shaqada online-ka waxa la dhahaa home based business baa la dhahaa faa'iidooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah in maaragtay lacag yar lagu bilaabi karo oo maaragtay markii loo eego shaqada kale caadiga ah dhaqaale yar lagu bilaabi karo $500 $300 iyo wax lamid ah waxaa ka mid ah inaad adigu shaqadaada xor u tahay oo aadan cid u shaqaynin waxaa ka mid ah inaan cidi kuu shaqaynin waxaa ka mid ah maadaama shaqadani ay u baahan tahay maaragtay internet iyo maaragtay computer ama mobile meel kastoo aad joogto inaad ka shaqaysan karto magaalada aad joogto haddaad dukaan ku leedahay oo aad ka tagto oo magaalada ku xigta aado saacadaas laga bilaabo waxaa tahay baagamuuda ayaa tahay ma garata laakiin tani waa kula soconaysaa meel kasta oo maaragtay aad tagto waa kula soconaysaa hadday shaqadani kuu nataxdo oo dhaqaale kuu soo saartana waxa weeye hadhow waxaad helaysaa xorriyad safar xorriyad shaqada la aadayo meeshaad rabtaa u safri kartaa saacadaad rabtaad shaqayn kartaa qofkii aad rabto oo aad jeceshahay baad la shaqaynaysa wax la qabsanaysaa qofkaadan doonaynin maaragtay waxba la qabsan maysid faa'iidooyinkaas ay leedahay marka shaqooyinka caadiga ah markii la eego iyaga shaqooyinka caadiga waxay noqon karaa shaqo oo shirkad loo shaqeeyo ama shaqo adigu aad leedahay sida dukaan oo kale aad leedahay oo kale marka shaqo dad loo shaqeeyo waxay kaaga baahanta marka hore cilmi inaad yeelato cilmi la'aan shaqo inaad hesho waa adag tahay shaqadii markaad heshana hawshii aad qabanaysay wixii aad soo saaraysay waxa lagu siiyaa isuma dhigmaan maaragtay waxaan kuu qalmin ayaa lagu siinayaa waxaa laga yaabaa markaasna inaad dhibaatooyin kale ku qabto handadaad iyo waa ku ruqsaynayaa iyo xaggee taagnayd iyo xataa waxaa dhici karta haddaad subaxdii inta shaqada timaado carruurtii baa iga xanuunsan isbitaalka aan geeyo hallay fasaxo inuu yidhahdo walaal haddaad shaqaysanaysa shaqayso marka dhibkaasay leedahay dukaan haddaad leedahayna waa malaayiin dollar horta inaad haysato weye marka hore dukaan ma yeelan kartid adaan xoola lahayn midda kale inaad ilaalisaa lagaa rabaa shaqaalihii ka ilaaliso u taagnaato marka shaqooyinka caadiga maaragtay dhibkaasay leeyihiin midda kale waxaad la socotaan inay shaqooyinka caynkaas ahaa oo hadda dhibkaasba lahaa in lala yahayba maaragtay ciriiri galeen markii karoonaha iyo xanuunadan iyo waxaa yimaadeen shaqooyinkii maaragtay in kamiliyaashii maaragtay la wada xiray la wada gaday shaqaalihii la dhimay dukaankii maaragtay wax soo gala markii la waayey maaragtay la xiray shaqooyinkii inay iska soo gabaabsadeen dadkii inay guriga ku soo urureen marka haddii guriga lagu soo ururay haddee waad ku khasban tahay haddii aad qof fakaraya tahay oo ilmihiisa iyo naftiisa ka fakaraya tahay inaad online-ka wax ka raadsatid maaragta ood online-ka aad maaragta ku shaqaysato marka iyadoo arrimahaasaa jira midda kale waagii hore waxaa mushtari jiray qofkii maaragta lacag haysta hadda waktigan casriga ah oo maaragtay la joogo waxaa kusoo kordhay inaad ku mushtari kartid timekaaga iyo talentigaaga macnaha waktigaaga iyo cilmigaaga inaad ku mushtari kartid oo aad lacag u rogi kartid marka arrimahaas ayaan rabaa maaragtay inaan maaragtay dadka aan ka caawino wixii maaragtay ilaahayna karansiiyo marka arrintii baan guda gelaynaa software baan hayaa softwarekaas waxaan sheegi doonaa markii oo ma garanaysaa qofku uu go'aansado inuu maaragtay ila soo xiriiro ayaan la wadaagi doonaa marka sidii wax u qabanayaan ku tusaya matalan company baad xayeysiisaa aniga company baan hadda xayeysiiyaa companyga waxaa la yidhaahdaa forsage x gold baa la dhahaa waa ku dhuftay
okay waa ku dhuftay videogiisa wakaas videogaas ayuu leeyahay videogii marka wakaas videoga qofkii markuu dhagaysto haddaan arrintaas aan la isku xirin qofkii videogii markuu dhagaysto waa inuu maaragtay laba u bannaan marka qof baad u dirtay videogaan aad u dirtay qofkii markuu dhagaysto laba u bannaan inuu inta dhagaysto meeluu iska qoran waayo oo markaas halkaa isaga aamuso oo saasuu kugu soo noqo qofki iyo inuu kula soo xiriiro oo ku yidhahdo war waa arkay xaggee baan iska registareeya ma fahmaysaa marka matalan registration pagekana waa kan marka registration marka hadduu ku soo codsado aad nasiib leedahay oo ku yidhaahdo xaggee iska registareeya waa ka registration page halkaasuu ku dhufanayaa saas u soo register marka waa laba shaqo weeye waxaadna khatar u tahay qofku markii hore videoga dhageystay meeluu iska qora markuu waayey inuu maaragtay iska tago iska aamuso marka halkaan markaan xgold forsage leeyahay macnaha kambani kasta ayaad u isticmaali kartaa kambani kasta oo aad ka shaqaynaysaan video youtube-ka ku jiro presentationana waa leeyahay bog la iska qorana waa leeyahay laakiin nasiib darro labadoodii oo wada socda ma diri kartid waa inaad midba mar dirtaa haddaad midba mar dirtana dhibaatada hadda aan soo sheegay baad la kulmaysaa dhibaatadaas ayaad la kulmaysaa marka si dhibaatadaas looga baxo softwareka aan maarata kuu hayo waxa weeye wuxuu kuu sahlaya labadoodii baan isku xiray labadoodii baan hal page isugu geeyey hal link isugu geeyey waa kan waa kaas ma fahmaysaa halkaas softwareki isugu geeyey qofkii marka videogii haddaa goonida u dhageystay wuu dhageystay halkaasuu ka dhageystay barnaamijkuu ka dhageystay markuu dhammaysto halkaanu imaanayaa wuxuu leeyahay click to access maxaa usoo baxay formka enter your details to continue qofka wuxuu qorayaa magaciisa oo saddexan wuxuu qorayaa haddii alla ku ron yahay mobilkiisa wuxuu qorayaa emailkiisa intaasuu qoraya intaa markuu qoro wuxuu leeyahay halkaana tig siinayaa wuxuu leeyahay summit buu leeyahay summit bas maxaa adiga kuu soo baxay qofka maxaa u soo baxay macmiilka ahaa thank you we will contact you shortly waa mahadsan tahay si dhaqso leh ayaan maaragtay kula soo xiriiraynaa haddii kale option waxaa jira halkan uu ka soo baxaya maaragtay registration pageki ayaaba u furmaaya markuu halkaa galo registration pageki baa u furmaaya ma fahmaysaa registration pageki baa u furmaaya halkaasuu iska registareynaya ama su-aal dheeraada kaa soo weydiinaya su-aal dheeraada ayuu intaa waxaa kuu raaca qofkii databaseka softwarekaas databasekiisa wuxuu kuu dhigaya qofka magaciisii waddanka uu ka socdo haddii ala ku reeyay mobilkiisii iyo emailkiisii ayuu meel kuugu qoraya halkaasaad ku haysta qofkaas marka anytime wakti kasta ayaad la xiriiraysaa wakti kasta ayaad la xiriiraysaa marka kambani kasta adigu xayeesii noocuu raba ha ahaado saasaan kugula talinaya si hawsha kuugu fududaato inaad softwarekaas waxa weeye wuxuu kuugu kacayaa bishii $25 ayuu bishii kuugu kacayaa haddii alla ku reeyay haddaad 3 bilood ku bixisana maaragtay wuxuu kuugu kacayaa maaragtay $19 3 bilood haddaad isku bixiso ayuu kuugu kacayaa marka haddaad doonaysa businesskaaga inuu kuu hormaro waxaan kugula talinaya softwarekaas inaad maaragtay iibsato oo member ka noqoto oo ila soo xiriirto videogan halkaasaan ku joojinayaa waxaana dhigahayaa maaragtay kanaalkaygii caanka ahaa Siciid Ereg waa kan haddaad kanaalka u baahato waxaad leedahay halkaan youtube-ka tagaysaa Siciid Ereg baa ku qoraysaa kanaalka waa kan kanaalka hadduu kan yahay waa kan halkaasaa ku dhufanaysaa oo kan playlist baad leedahay playlist markaa ku dhufato waxaan geynayaa haddii home based business ayaan geynayaa haddii alla idmo halkaasaan geynayaa meesha u horeysana wuu gelayaa marka videoga ayaan geynayaa haddii alla idmo
marka hadhow videoga markaad tagto tala videoga haddaad tagto oo kale ama haddaad markaa videoga markaad joogtid waa kaas halkaasaad ka gelaysaa videoga hadda aan kuu soo diro aad igala hadlayso aan kaala hadlayo markaad joogto halkaasaad ku dhufanaysaa haddaad kanaalkaa rabto maarata kanaalka haddaad halkaasaad ku dhufanaysaa halkaasaad ku dhufanaysaa halkaa markaa ku dhufato waxaad leedahay playlist markaad tiraahdo waad soconaysaa waxaad leedahay home base business halkaasaad ugu tegaysaa halkaas ayaad ugu tegaysaa home base business ayaad ugu tegaysaa haddii alla idmo marka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa haddii alla idmo aad iyo aad baan idiin salaamayaa